Marwan Islaame waa barnaamijkii yaabkiis waxaan la yaabay oo aan yaabkiisa idiin taagayaa idiina soo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wixii ka qabsaday shirkii dubay isaga aan bilaabe waxaan la yaabay oo yaab inagu ah si ay ka noqotayba madaxweynuhu markii uu galay meesha shirka waxaa lagu sheegay soomaaliya inuu ka yimi wuu ka gelgishay walow sidii la rabay aanu u hadal wuxuu sheegtay inaanu soomaaliya ka imanayn inuu somalilan isagu yahay somalilanna magaca saxda ah ee dastuurkeenna ku qoran maaha suuqdiga waa loo soo gaabsan karaa laakiin sharciyan dastuurkeenna kuma qorra madaxweynena wuxuu ka turjumayaa dalkiisii horta marka hore waxaa ka muuqatay inaan aad looga shaqaynin qarba ay arrintu ahaydoo maadaama ciddii xidhiidhinaysayba ninkan ay garan weyday oo ay meel kale ku sheegtay halkaa waxaa ka muuqday qarjajac iyo qarbahaasina waa kii madaxweynaheenu markuu dhoofayu ka degayay dubay inooga muuqday sawirkiisa inaan dowladina soo casoomin dowladina soo dhoweyn ee isagu uu istabarayo dhoweyihiisa dalbaday tiisu la mid ah ayuu horta shirkana ku galay wuxuu mana lagu beegayay saan hore u sheegay arrinta uu baxay oo mid shaksiya ahayd ama mid isaga u gaar ah in lagu beego shirkan dhowrka cisha iyadoo ka harsan tahay hayaay shir baa la tegayaa ee la leeyahay wuxuunbaa lagu beegayay arrimihiisa u khaaska ah ee uu dhoofay runtu tahay waxa la diidanaa madaxweyneba arrimo khaasa u dhoofay ceebna maaha sidaasaa ka muuqatay inaan shir diyaar loo ahaa ama maxaydii laga shaqeeyey aanu ahayne miduu cidhiirsanayo weliba db wall ay u cidhiidhinaysay db wallshi shalay uu diidanaa la dagaalamayey mid u cidhiidhinaysa u cidhiidhsaday inay hayd baa inoo muuqatay waaya kelmadda wuxuu isticmaalay madaxweynuhu somalilan xasan sheekhba somalilan wuu inagu yeedhaa laakiin jamhuuriyadda somalilan inaguma yeedho madaxweyneheennu waxa wanaagsan ama ay sax tahay inuu kelmadda magaca runta ah ee laynoo yaqaana dastuurkeenna ku qoran mar walba uu isticmaalo diblomaasigu sidan maha iyo diblomaasiyaddu inaad waxa xasan sheekh kugu yeedho adiguna isugu yeedho waa fadeexad iyo ceeb saxna maaha waanu ku xasuusinaynaa dhegtaa wax lagugu sheegay dhegtaadii soo gaari mayne public baanu kaaga sheegayna camo halkaas waa qodobka labaad waxa weeyaan qodobka labaad ee isu taagaya wuxuu noqonayaa I am the only elected Somali leader. No other Somali leader is elected. madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynaha soomaaliyeed ee keliya ee cod ku soo baxay subxaan allah waxaad mooddaa madaxweyne ciro markuu meelaha qaar ka hadlayo ama meelaha babliga ah in muraayadhaadan uu ka arkayo dad uu ka boqanayo waayo dhowr goor baynu aragnay isagoo soomaalida ay kaga dhigsan tahay meesha dowladaha tegaya dalal ee jinsiyad lagagama hadlayn jinsiyad soomaaliya waa jinsiya maaha dee dal iyo dowlad soomaalida keliya ee dowlad loo yaqaano ama dal loo yaqaano waa soomaaliya tii waxaanu u hadal haya mar walba dee anuu garan maayo wuxuunbaad mooddaa in halkaa daaqada muraayadhaada ka arkaya xasan sheekh fahad yaasiin halka soo jeeda jabuuti halka soo joogtaagan dadkii dee ma garanaysaa xilligii doorashada maalgeliyey inuu weli ka baqanayo ayaad mooddaa waa ka markuu hadlayo xitaa ee uu isleeya wax ka sheeg soomaaliya odhan maayo wuxuu odhanayaa idinku fogaan maayo waxaan idin leeyahay yacni uu ka fasax qaadanaya subxaan allah ninkan horta waxaynaan arkayn oo reerkii somalilan aan arkayn buu ka baqanaya waayo dee soomaali meesha lagama hadlayn haddii uu daacad ka yahay madax bannaanida somalilan iyo jamhuuriyadda uu madaxweynaha ka yahe loo dhaariyey dee wuxuun buu odhan lahaa madaxweynaha geeska afrika ama bariga afrika ama gobolkan aanu joogno dee hadduu faanayo waxyaaba badanuu ku faanaa buu dee heli kari lahaa ee doorasho haalah ay ka dhacday oo madaxweyneyaal isbedeleen oo dimuqraadiyad madaxweyneyaal isku bedeleen ayuu dee odhan lahaa waxaan ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha soomaaliyeed iyo mar walba uu soomaaliya u hadalhayo iyana waa su-aal isweydiin leh far baa ku godan
diblomaasiyadduna noocan maaha diblomaashu lagu yeedhiyey diblomaasiyaddu maaha inaad iska dhaqaaqdo oo dhaweeye iska raacdo in magacaaga la garan waayo inaad adiguna magac kale oon kii saxda ahayn aad ku dhawaaqdo iyo inaad mar walba soomaali hadal hayso adu islafaan waayo soomaalida aad ku dherarsanaysa ma axmed madooba iyo puntlandba ma jubbaland iyo puntlandba waxaan u malaynayaa inaad maamul goboleedkii ayaga aad ku ballanteen inaad ogoshay tusayso ayun baan u qaadanayna annagu mar walba cabdiraxmaan ciro ama madaxweynaha suurad somalilan wuxuu niyad jabiyaa dadka reer somalilan u dagaalamaya ee xitaa ajanabiga ku jiro waxaynu daawannaa waynu baraha bulshada si ficliyana iyo maraykanba uga daawannaa niman caddaan ah oo somalilan u dhalan oo intay u yidhaahdeen weli cirraha madaxweynihii aanu odhan iyo kabinetkiisu weli umay odhan ragga social media ku jira ee twitterka ka dagaalama hadallada ay ku dagaalamaan ay yidhaahdaan weli qof xil hayo jimhuriyadda somalilan ka socda ama ka tirsan iyo oo ilaa heer madaxweyne ahi uma odhan markaasow kelmaddii uu lahaa maalintii fahad yaasin uu ka cadhooday imaaraadka ee uu safarkii kan ka horreeyey dubay ku tegey ee uu lahaa madaxweyne ciro waxaa ka somalilan darsan dalka imaaraadka sow kelmaddii run noqon mayso jawaabtu waa haa diblomaasi baynu maqalnaa mar walba markii hore bannaanka uu joogayna waxaynu maqli jirnay garxajis labadaba waa lagu kabaya cabdiraxmaan marka horena qabiil baa lagu kabayey maantana waxa lagu kabayaa haddii alla kuu roon yahay diblomaasi waxa la og yahay meel baa la buuxinayaa dee daloosha meel baa bannaan ayaa hadalka lagu buuxinaya islaamaha innii hore xarfaanta ahaa ma dumarkeennii carruurtooda way kala yaqaaneen ka ay doonayaan inay kabaan ee ay arkayaan inuu magaranaysa wax ka yar dhiman yihin ay halkaa u buuxiyaan laba magac bay ugu yeeri jireen maxamed deeq yuusuf geesi maxamed khadar laba magacaluha laba magaalaha ogow magacaa labaad raggan kalaa magaranaysaa ay wada dhasheen ayaa la doonayaa in magaranaysaa de lagu gaadhsiiyo ama lagu dhaafiyaba markaa horta diblomaasiyaddan la sheegayaa inooma muuqato laakiin waxay noo muuqda wax kala dhiman oo mar walba qabyo ah oo mar walba magaranaysaa aan saxahayn waxaan leenahay dadka reer somalilandow hadalladaa aynu arkayno mar walba ee qalbi jabka ku ah reer somalilan itiraafna kama muuqdo waxaa la yidhi ninkaad ka tolanayso kabihiisaa la ega war ninka wasaaraddii arrimaha dibadda indhaha ka riday ninkaa u dhiibay ka cadahaya war ninka ergiga ka dhigtay wadahadalka soomaaliya waa la qarinayaa ayana sheekh bashiir war ninka jaamaca ugu sarreeya dowladdiisa xamar nagaga yimi oo dhabu heshiisyo ka shaqeynayo baadiyo macallin u yahay war ninka safaaraddii laysku kenya la kulmaysay dowladaha iyo safaaradaha kenya ku yaalla gobolka maxamed cabdilaahi ka dhigtay war ninka abbaan uu gadar uga yahay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ninkii wasiirka maaliyadda soomaaliya ahaan jiray muxuu ahaa reer booraba maxamed case bayle war ninka tiimkaa wata ma idinku maqan yahay ictiraaf isagoo hadduu ictiraaf doonayo dadkeeda muu kahaysteen isagoo hadalkeeda kumuu hadleen isagoo kalsoonideedu kamay muuqateen isagoo meeqaamkeedu kamay muuqateen war ninka maamul lagu dul dhisanayo ee prime ministerka ku dul yimi ee heshiiska ku yimi ee maantana xasan sheekh u soo socdo tiimku wataana kaa yahay wuxuu ku hadlayaana aynu arkayno ninka ilaahay wuxuu inoogu maqan yahay ictiraafow habeen maad jirin iminkana wuxuu samaysanayaa koox ciidankii sabene maslax siyaad bare wallahi aan biyo ka samaynin waxaa ugu jira dugsiga 105 inoo muuse cabdullo 75 cali aba korkooda yihin ya wuxuu soo wataa weli maydha sirdoonkii leexsanaa ee la sheegi jiray iyagu afkooda ka sheegi jiray inan jirin ayagaa samaystay dugsiga tababarku wuxuu ku yaallaa musallaha ee casharada lagu bixiyaa
ودوكش قبيلي دوكش كتبر كيم كدر وين إنما ذا الشيء يبقى كشرة إذا ما قارا أو كون نقانة هي بالصمشت ومالين دو وحنكوري ماذا حيدك قراءة دورة حرق باكار للصحفية ماذا حيدك قراءة دورة فور مرة لو شغالين أنا واتي فرماتش يفهد واحد سبعين الوجي إن ضد حتى وحي كوري مادة لخارجيه ودي نوحة ساق صعدة دي بدي نوحة أنا أركن أباك صعوتين ميانا يابكي هاي فيصلوا ويابكي حاتري لم يموكالو يلم ليليا إهورياعي يموكالو يلم ليليا إهورياعي يحب الرام يحشمنا يعدي سلام يحب الرام يحشمنا يعدي سلام ويا بني إذن كنا تبيو ميل يا بنسي يا بني إذن كنا تبيو ميل يا بنسي ويا يا بنيس ويا يا بدي ويا كلوي عاشقي بدي ويا